بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الحق سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إلهي سبحانه وتعالى وحياله ونواد ونصحى كمذا dadka muuminiinta ah inay wax wanaagsan oo khayrka isu sheegaan oo khayr isugu kaalmeeyaan, waxa xumahan ay iska celiyaan. ummadda waa bini'aadmiga meesha ku wada nool, waa dad doon wada saaran waaye. waxaa fiican marka wax maslaxadooda inay ka wada shaqeeyaan oo ummadda anfacaya in qof walba uu dareemo inuu mas-uul ka yahay mujtamaciisa. naftiisa ugu horeysa inuu mas-uul ka noqdo, awlaadiisa iyo ehelkiisa mas-uul ka noqdo, mujtamaciisa, wadankiisa, dowladiisa, waxaas dhan inuu dareemo inuu xil ka saaran yahay oo ay tahay inuu mid walba xaqiisa uu oofiyo. waxaa kasii horeeya xaqi uu ilaahay ku leeyahay subxaana wa tacaala. marka maadaama annaga aan dhakhaatiirnahay, mowduucna khuseeya oo munaasabadan hadda ah oo taariikh maanta caawa ay tahay 27 bisha Ramadaan ee maanta tacaaw 26 Ramadaan sanadka 1441 oo waafaqsan 20 May 2020. waxaan jeclaysanay maadaama ciid nagu soo dhowdahay, sida aan hore u samayn jirnayba dadka muslimiinta ah ee deegaanka degan inaan kelimad nasiixa u gudbino. waayo aragnimada aan leenahay oo aan aragnay waxaa ka mid ah xilliyada ciidda ah waxaa dhaca dhibaato badan oo ka timaada waxyaalaha ilmaha ay carruurta ku cayaaraan, oo ay ka mid tahay bisoolada, rashka, bisoolada kuusha ah khaasatan tambaaruudda ah. waxay noo keenaan dhibaato badan. waxyaalo badan oo ilmuhu ku cayaari karaan baa jira. cayaarta waxaa ka muhiimsan ilmaha badbaadadooda. marka waxyaalaha dhibaatada keenaya waxaa la rabaa annaga maadaama aan dhibaatada aan aragno oo ilmo dhaawac linoo keeno, waxa weeye inaan bal wixii dareenkayaga aan ummadda u gudbinno. nabiga xadiiskiisa wuxuu calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay alkhadf, waxa la yidhaha khadfiga waa farganka waaye, wuu nahiyey calayhi salaatu wasalaam. wuxuu dhahay alkhadf, wuxuu dhahay laa yasiidu saydan, colna kaama celiyo, ugaarna kuuma dilayo, walaakin yafqahu alcayna wayaksiru sinna. shaqadiis waxaa weeye inuu isha soo rido, iligan uu jabiyo. marka kuushaan hadda ayadoon ciidii la gaarin 3 beri ka hor ilmo yar baa la ii keenay, laascaana laga keenay. waxaa ku soo dhaaftay bisoolada kuusha ah baa lagu soo dhuftay. waxaan ka wadaa ciidii dhowr beri ka hor waaye, ilaa 5 beri 6 beri usbuuc ka hor waa ciidii ka hor. waxaa noo yimid ilmihii oo ishii dhaawac ka gaaray, oo waxa ishii dhiig ka galay, oo ay dhici karto isha gudaheeda xitaa indhaa waxay la kale ka gaarto. marka waxaan jeclaysanay iyadoo ammaanay naga tahay inaan ummadda gaarsiino kuushaas annagoo dhan oo dhinac kasta ah, oo ganacsatada ay ugu horeyso, oo waalidka uu ku xigo, oo waxa ciddii xil ka qaban karto uu ku xigto, in bisoolooyinkaas aan wadanka la keenin. ilmaha loo keeno waxay ku cayaari karaan, laga dhibaato u geysanayn. ilaahay in laga cabsado subxaanahu wa tacaala, oo qofka taajirka ah ee ganacsadaha ah markuu shay soo gadanayo inuusan ka fikirin maxaa keenaysaa keliya, caqligiisu intaas uusan noqon, ee uu ka fikiro inuu faa'iido helo, ummaddiisina uu dhibaatada ka ilaaliyo. nooc kasta ay noqoto tijaarada saasaa la rabaa. markaad tijaaraysanaysid inaadan noqon qof dirham iyo dinaar kaliya ka fikir, caqligiisu intaa ku egyaa kaliya. laakiin aad ka fikirtid waxaan aad ka tijaaraysanaysid ummadaada maxay ka faa'iidaysaa, adiga ka faa'iidid, laakiin ummadaada muxuu tarayaa. waxaa ka mid dharka xitaa la soo gaday waa soo galaysa, xitaa dadka marka dhar la keenayo dhar munaasab u ah, dad islaama meesha degan, dhar munaasab ah loo soo gado. inaan rashkaas loo soo gadin, oo rashkaas dhibaatuu keenayaa. waa ogtihiin hadda kahor marka saddexaad aan ka hadalna amalinaya, dadku waa ogyihiin. marka inaan la keenin waa si ugu dhibeer wey. wiil yar oo muslim ah oo ummadda anfici lahaa, oo mustaqbalkiisa aad ku cayaartid, ilaahay agtiisa qiyaamaha waa lagu weydiinaya maalinta qiyaamo, oo mas-uul baa ka noqonaysa. mas-uul baa ka noqonaysa qofku, waa la weydiinaya maalinta qiyaamo wuxuu sameeyo
waxaa la egtaa hadda waxaa ogaataa ilmahaas sababtaada ay dhibaatada ku gaartay waa wax ku sugaya su-aashii maanta qiimo ku sugaysa waay marka ragga ganacsatada ah ayagaa ugu horeeya min fadlakum waxaan ka codsanaynaa inaynaan keenin waa mid haddaan intaas kasii gudbo waxaa weeye ilaahay wuxuu insiin doonaa wax ka khayr badan baa idinku bedeli doonaa dhinaca kaleeto waxaa ogtihiin diinta islaamka waxyaalaha ay ilaalisay oo ay mujtamaca u ilaalisay waxaa ka mid ugu horeeya waa diinta waa nafta bini aadmiga waa caqliga waa qofka maalkiisa iyo cirdigiisa sharaftiisa waay sanad walba intaasoo ciyaalah baa waxaa dhibaatada nooga gaartaa oo indhahoodii ama ku indhabeelaan ama dhaawac ku noqdaan ama ku naafoobaan wax yaroo sahlan oo adiga kula sahlan laakiin dhibaato mujtamaca ku haya marka ilaahayna aan ka cabsanno subxaana wa tacaala ilaahayna aan ka cabsanno mujtamaca iyagana xil aan iska saarno nabigu wuxuu dhaha alayhi salaatu wasalaam kullukum mas-uulun wa kullukum mas-uul can raciyatih waxa weye qof walba ka mid xil baa saaran waxa weye inuu marka qofka xilkiisii u guto oo waxa weye mas-uuliyad u dareemo oo waxa weye ummadda wixii dhibaataynaya uu ka ilaaliyo waaridka ilaahin ka cabsada ilmihiina mas-uul baa ka tihiin waxyaalaha dhibaataynaya ka ilaaliya baaruudda ha usoo gadina oo rashka ha usoo gadina oo tan qarxaysa ha usoo gadina wax kaloo ka cayaaran baa badan marka lacagtiinnii dhibaato kaloo ka badan adinkaa usoo jeedina ilmaha yarka waxba gargaran mayo maxaa fiican maxaa xun ma garanayo waxaa dhici karta kuushii inuu qofka u horeeyo ishkaga dhici karta marka hadalka tiris waxa weye xatar mayso intaas baan kusoo gabagabayn lahaa ilahi waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala inaan noqono mujtamac caqli badan oo faa'iido leh oo mas-uuliyadda dareema oo ummadooda ka fekera horumarkooda iyo nabadgelyadooda ka fekera ilahi hanaga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu